warqad ka soo baxday wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya una ku saxiixnaasi hayaha xilkaasi Sadiq Xirsi Warfa ayaa lagu sheegay in dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya qaybahooda kala duwan ay mari doonaan baaritaan la xiriira hubin amni. warqadan waxaa la ogeysiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xafiiskiisa iyo waliba xafiiska ra'iisul wasaaraha, waxaana la sheegay in ay tahay arrimo quseeya amniga. shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaana lagu wargeliyey in ay ka qayb qaataan baaritaankan oo ay sameynayso hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. qoraalka ka soo baxay wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada ayaa lagu sheegay isagoo tixgelinaya muhiimadda uu amniga u leeyahay guud ahaan muwaadiniinta Soomaaliyeed, gaar ahaan shaqaalaha dowladda, inay ka qayb qaataan sugidda amniga qof kasta iyo waliba goob kasta si looga hortago wax kasta oo waxyeeleyn kara guud ahaan amniga. waxaana la ogeysiiyey in dhammaan shaqaalaha dowladda federaalka Soomaaliya u diyaar garoobaan hubintan amni iyo waliba su'aalaha la xiriira dhanka amniga oo ay weydiin doonaan xubno ka socda hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Mahad Mutawakkil, Honkebel TV, Muqdisho. maxaad ka faa'iidaa inaad lacag ku shubato kaarkaaga Somtel? haa, internet xawaare leh iyo ku hadal muddo dheer ayaad ka faa'iidaa. ma ogtahay in intaas in ka badan aad hadda ka faa'idi karto? ma ogtahay inay Somtel bilowday abaalmarino cajiib ah oo ay macaamiisheeda ugu tala gashay? waxaa ka mid ah abaalmarinahaas dahab, microwave, TV iyo moobilo dhammaan shirkadda Samsung ah, account lacagi ku jirto oo banka dahabshiil ah, dalxiis aad ku degto hoteelada Damal, iyo waliba 10 gaari oo Hyundai cusub ah, kuwaas oo qaar ka mid ah gaarayaan qiimo $30,000. intaas iyo xidhmooyin kale oo guud ahaan 5,000 oo abaalmarinood noqonaysa waad ku guulaysan kartaa. waxa aad ka mid noqonaysaa liiska tartamayaasha haddii aad ku shubato ku hadal, ama aad ku shubato internet, ama aad tahay qof ka ganacsada ku shubashada, ama aad tahay qof u adeegsada dahab qaab shakhsi ah iyo qaab ganacsi ah. ka qaybgal macmiil oo ka mid noqo guulaystayaasha. si aad u hesho xog intan ka badan, fadlan garaac 333 ama 111.